xisbiyada yaraa waxa liqay dawladdii xisbi baan ahay tiri xisbiguna wuxuu macna leeyahay markuu ku jaango'an yahay danta ummadda shicibka awalka baqabiilada ahayd laakiin hadda waxa ka baqabiilada bedelay madaxyada tan xukuma xisbiyada marka dhaqan miyi baynu leenahay marka la guurayo sahan baa la dira sahankaasi waliba qof ma ahee markuu ugu yaryahay labo innaga marka dimuqraadiyadeenu iyo geedigeenu hal qof baa sahanshay xisbi mucaaradi wuxuu u taagan yahay inuu xisbiga markaa talada haya ama awooddu gacanta ugu jirto inuu daldalooladooda arko axsaabtuna waa magacuyaal qofkii wixii xun oo loo jeedo oo been ku salaysan markii laga hadlaba in la yiraahdo doorasho ka soo horjeedaan sagaashanadiiba ereyga birilaqada la yiraahdo ku soo biiray luqada Soomaaliga ah marka waad wada birilaqadii jeebka iyo guryaha iyo lacagta in la boobaan ku ogeeyay haddana axsaabtii bay ka bilaabatay dastuurka aamusan markii baarlamaanka laftiisa la eedeeyay ama dadka la dulmayana dastuurka hadlaya muxuu yahay kaasoo in la isweydiiyo ma yuu qabtaa horta dastuurku soo ma ahayn inuu ina wada qabto ma in baa fasaxan oo tagrifalka u fasaxan in dastuur ma mareeg lagu xirxiraa waxaraha mareeg lagu xirxiraaye dastuurku ma mareeg shacabka lagu xirxiraa oo qoorta looga xiro oo loo geliyo maamul noocee ah baan rabnaa dad noocee ah baan u dhiibanaa Puntland hirig uma baahna marxaladda ay ku jirtaa xanan ku jiid uma baahna cid meelo kale raali gelinaysana uma baahna wax fiican in wax lagu aasaaso ha ahaado waxa wax ku bilaabanaya waxna dooni mayno cidna wax la dooni mayno laakiin waxaan doonaynaa hal laandiyo ah nabadna la isku doorto mas'uuliyadana cid u qalanta oo geeyda loo dhiibo